iyadoo weli gobolka Gadow ka taagan yahay xiisada colaadeed ee u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka Jubbaland iyo magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gadow waxaa maanta gaaray xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland qoraal oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in xildhibaanadan iyo sidoo kale saraakiishan maanta booqday degmada Beled Xaawo ee halkaas u tageen sida ay u kuurgali lahaayeen xaaladda ammaan ee magaalada Beled Xaawo halkaas oo maalintii shalay ay ku dagaalameen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale kuwa ka amar qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe sidoo kale qoraalka ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu xusay in ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland iminka ay si buuxda gacanta ugu hayaan guud ahaan ammaanka magaalada Beled Xaawo sidoo kale saraakiishan iyo xildhibaanadan ka tirsan Jubbaland ayaa waxa ay booqdeen xarunta degmada Beled Xaawo iyo sidoo kale goobo kale oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka Jubbaland si kastaba magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gadow ayaa iminka xaaladeedu waxa ay tahay mid aad u kacsan iyadana iminka magaalada uu ka dhex jiro dhaqaaqyo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Jubbaland oo wali isku hor fadhiya goobihii shalay uu dagaalku ka dhacay dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Jubbaland ayaana midka kale ku eedeeyay cidda sida rasmiga u bilowday dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gadow lamana oga halka uu ku dhamaan doono xiisadan u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland oo muddo dheer soo jiitamayay